السلام عليكم ورحمة الله وحان رجينيا inaad caafimaad qabtaan inaad wanaagsan tihiin sanad cusub sanad wanaagsan ayaa idin rajeynayaa sanad barwaaqo leh sanad aad horumar weyn gaadhaan dhinaca adduun iyo dhinaca qaraba sanad aad wax kasta oo niyadiina ka guuxaya oo aad isleedihiin warka keena aad warka keentaan ama aad ku guuleysataan ahdaafta aad dhigateen run ahaantii sanadka cusub oo hadda dhashay 2022 waa sanad anigu aad ayaan ugu farxay run ahaantii sanad kasta markuu dhasho waxaan leeyahay alxamdulillah ilaahay ama iskale ilaahaygi intaan isoo gaarsiiyay ilaahaygi ila kulmiyay inaan sanadkan cusub arko ilaahaygi sanad dhan oo cusub noloshayda ku sii daray ilaahaygi isoo gaarsiiyay waqtigaanayto marka run ahaantii waa wax aad u wanaagsan in lagu farxo sanad markuu dhasho sanadaha way kala duwan yihiin sanadka islaamiga iyo kan kale oo hadeertaan marka alxamdulillah sanadkii dhashaba mid kastaba anagu kana inta badan ku xisaabsanaa taariikhda iskuulaadka waxyaabo badan oo iska jira marka alxamdulillah rabbil alamin markastaba waa khayr run ahaantii waxaan fiirinayay waraaq buuggi oo journaling aan ku sameynayay 2020 iyo 2021 kiiba hal buug baan waxaan ku qoray labadaas sano dhanba hal buug baan waxaan ku qorayay anigu waxaan ahay dadka waxyaabaha ay rabaan inay sameeyaan meel ku qorta hadaanan meel ku qoran waxaas kama dhabeeyo anigu marka waxaan ahay maaragtay waxaan dhihi karaa maybe waa jiljilacsanahay oo hadaan iraahdo wax samee wixina aanan meel ku qorin inta badan tilaabo ma qaado waa inaan wixii meel ku qoraa waa inay wixii meesha aan ku qoray hoosteeda aan ku qoraa the reason why I'm doing what's my intention sababtaan u sameynaya maxay tahay waxaan aan sameynayo waa inaan meesha ku qoraa oo kaleeto specific time aan sameynayo if things are not clear dadka wax sameeyay aniga it has to be clear whether it's a relationship whether it is shaqo whether it is wax aan duubayo whether it is waxaan cunayo whether it's meelan aadayo there has to be a reason behind our sameynayo wax kasta in aan sabab u sameeyaan jeclahay hadaanan sabab u sameeyna wixii maaragtay sida ugu wanaagsan oo ma faa'iideysto inta badanna maaragtay I take it for granted marka qaarna marka alxamdulillah sanadkan hadartan 2022 alxamdulillah rabbil alamin nasasho dheeraan ku jiray ayaan dhan waxba maanan duubin social media xogaa waan ka nastay oo meelaha xataa maanu ku jirin alxamdulillah qolkan iskaga jiray waa mar aan wax cunayo iyo mar aan seexanayo iyo mar aan walaalaha iskala sheekeysanayo iyo familka in fact xataa banaanka xataa guriga ogamaana baxayn oo guriga iskaga jiray maalmahan oo dhan ilaahay mahad u sugnaatay marka waxaan dhihi karaa clear mind ayaan ku bilaabay sanadka cusub aniga maskax degan iyo deganaansho iyo nasiina badan ayaan ku bilaabay oo hadeertan taariikh 4 ayaa la sii maraya 4 berina 4 beriyo waxa waay maaragtay aan aad u nastay alxamdulillah oo si fiican u seexday oo xataa maanta waxaan seexdaan u maleynayaa xalayto markii habeenkii oo xalayto ahayd waxaan seexday saacado adigu 9 saac ku dhow ayaan seexday 9 saacadood aan seexday haddana teleefankayga hadartan codkan duubay isla markiiba codkii uu istaagay sababtoo anoo duuba inaan joojiyo ma rabin meel fiican ay iimaylaysa pointiga marka isla markiiba codkii uu istaagay teleefankan uu isxiray wuxuuna leeyahay seexo waqtiga seexana isa la gaaray marka teleefankayga xitaa waxaan ku programiyay meel kasta inaanan 15 daqiiqo ka badan aan ku jirin meel ayaan ku programiyay 15 minutes hadaan meel ku jiro asaga isoo tuuraya asaga iska xiraya hadaan wax daawanayo hadaan xitaa qof la hadlayo xitaa teleefanku uu go'aya marka wallahi alxamdulillah and I want to sleep more horta goolash aan dhigtay sanadkan waxa ka mid ah inaan wax badan seexdo inaan nasto maaragtay inaan nasto adduunkan orod lagu ma gaarayo qofka marka uu nastay oo maskaxda ay degan tahayna waxyaabaha uu rabo way u cad yihiin waa dayax 14aad camal waay bartaas u taagan yihiin waxa uu rabo uu og yahay maaragtay iskama duulduulayo qof degan oo wuxuu noqonayaa si xasilooni ku dheehan oo wanaagsan wax u qabta si qoto dheer wax u qabta ayuu noqonayaa qofku marka uu nasto marka maskaxda inay nasiino hesho ku filan oo aan nasto oo aan cunto caafimaad la cuno nafteeda aan ka bilaabo inaan wax caafimaad la cuno inaan nasto nasasho igu filan inaan helo oo aan nasto intaas
ayaan run ahaantii en qortay waxyaabo kale oo badan oo qoran ayaa jira laakiin balse kama hadlayo waa waxyaabo aniga rabbigayga noo dhaxeeya waa waxyaabo maaragtay iska qof noloshiisa bini aadamka ku saabsan kama hadli karo obviously qofku maaragtay waxyaabo aad u muhiim ah balse wax kale toon rabay inaan idin la wadaago oo run ahaantii wanaagsan tahay in la idin la wadaagana waxa waaye inaan waqtiga aan maareyno inaan waqtigana si wanaagsan u maareyno ya ina aan waqtigana si wanaagsan u maareyno inta aan ku jirayno saacado social media inta aan maaragtay entertainment daawanayno inta aan maaragtay soo habeenkii inta aan dhafri lahayn maaragtay wax wanaagsan inaan waqtigana ku bixino in aan maaragtay saacado aan siino inaan noloshana ku horumarno oo wax aan akhrisano marka maareyntu waqtiga aad ay muhiim u tahay in fact waqtiga hadii qofku uu samaareyn waxba uma qabsoomayaan markasta waxaad arkaysaa sanadkii oo dhamaaday wax aad qabsatay ma lahanaya sanadkii wuu dhamaaday wax aad qabsatay ma lahan sanadkii wuu dhamaaday 15 waxa rabtay inaad ka dhabaysid laba wax ayaad ka dhabaysay marka kulli waxay hoos imaanaysaa maareynta waqtiga marka taas ah inaan wax badan nasto iyo tan waqtiga in fact waa wax maaragtay iska maaragtay general ah oo aan la wadaagi karo general oo aan la wadaagi karo waa wax aad maaragtay run ahaantiina noo anfacaya anagoo dhan rag iyo dumarba bini aadamka qof kasta oo rabo inuu nolosha hadda lagu jirana waa nolol isbedelaysa isbedbedelkeeda badan waa nolol dadku ay ku nool yihiin nolol xawaaro ku socota waa xawaaro ku socotaan dhihi karaa wax kasta bay isbedelayaan shaqooyinkii la xiiseynayay 5 sano ka hor oo wanaagsanaa hadartan shaqooyinkii ma jiraan shaqooyin cusub soo baxay skills dadku waxay baranayaan maaragtay waxay sameysanayaan xirfado cusub oo degdeg ah in la barto waa in si degdeg loo barto xirfadihii waa in si qoto dheer loo barto xirfadihii waa in xirfadaha dadku maaragtay ay shaqada fiican ku helayaan dhaqaalaha fiican ku soo saarayaan nolol fiican si ay ugu noolaadaan noloshooda wanaajinaya xirfadaha noocaas waa in la barto marka waqti waxa lagu socdaa ku jaraya oo xawaaro badan ku socda ayaa hadartan lagu jira waqtiga saas ahaana hadii aad saacadihi aad ku dhimisid meel aan faa'iido kuugu jirin iyo waxyaabo iska maala yacni entertainment ama siyaasad wallahi marka qaar anigu waxyaabaha isweydiiyo waxa kamid ah why do people like politics qof kasta oo anaga naga mid Soomaali hadaan nahay politician baan nahay kulligeen siyaasadan taageer waxa arkaysa qof xataa siyaasad waxba ka sayn laakiin se mahanta dhanba statuska iyo waxyaabaha uu soo dhigay hada artida Facebook sida fiirsid waa dadka madaxda sawirradooda soo saaranayaan maanta dhan qof bay u doodayaan qof aan xitaa ku aqoon baad u doodaysaa for god sake qof aan ku aqoon xitaa inaad adduunka jidid buu qof aan ku kasaynba qof aan xitaa magacaaga ka sayn marka it comes down to in aan xor noqono qof xor ah inaan noqotid qof si xor u fakiray inaad noqotid ya nolosha dhan aad ka dhigin cadaan iyo madow nolosha kala badan bay leedahay marka kalaradaas aragtidna way ku macaanaanaysaa way si qurux badnaanaysaa nolol tayala ayaad ku noolaanaysaa run ahaantii intee nolosha adduunka aad nolol tayalaad ku noolaanaysaa marka waqtigii taas ay noqonaysaa xagaa waqtiga uga baxaya waxa kaleeto oo run ahaantii aan sanadkan toorba inaan xooga saaro in aan sanadkan kaliya sanadii la soo dhaafay xitaa waan sameeyay in hadii aan meel wax talaabo aan qaaday ama maaragtay ama arin ila soo gudboonaaday ama wax ugu dhacay oo qasaaro sababay ama aan ka heli waayay ama imrug galiyay ee jiraan in aan wixii maaragtay in aan wixii aanan isii raacin in aanan ka walwalin markasta constantly in aanan ka walwalin wixii in aanan markasta u dhihin waxaan maxay igu dhacon amniidid isku soo laalaaban whether it's a relationship whether it is qasaaro kale oo ganacsi ah whether it is wax aan rabay ama qof maaragtay aan isku wanaagsaneyn oo xitaa maaragtay shucaac mugdi una soo kala dhaxgalay whether it is dad aan aaminayo maaragtay qiyaameeyay ama si aan wanaagsaneyn ila dhaqmay wax kasto nolosha ay noqotaba wax kastaba ay noqotaba ama caafimaad xitaa ha ahaato wax la xiriiro ama ha noqoto war wax kasto nolosha ay noqotaba wax kasto oo kugu dhaco aan ku farxad gelin just to take it with grace losses ba adduunka ugu dhacaya qasaarooyin baan la soo maraya qof aad jeceshahay dhiman kara qof aad jeceshahay xanuunsan kara adiga maaragtay xitaa caafimaadkaaga isbedel kara
waxyaabo badan baa kugu dhici kara dad waxaa jira mar kastaba jecel inay dadka balaayo u maleegaan dad waxaa jira shaqo dhanba ay tahayba in ay dadka miserable ayaga miserable ah marka in ay dadka kale to noloshooda kharibaan dad noocaas ah jira marka waxyaabahaas oo dhan markay nolosha kula soo gudboonaadaan why me hadhihin just say okay what can I learn from this what can I take and make a story out of it maaragtay xitaa book hadaad qoraysid xitaa you can write all the losses that you in fact not all the losses because wax kastoo kugu dhaca dadka lama wadaagi karid let's be honest sababtoo ah waxyaabaha qaar hadda dadka la wadaagtid there are people who are dying to see adigoo maaragtay adigoo maaragtay jilbaha dhulka yaalaan oo walwalsan oo maaragtay qaraqansan all those scenarios dadka lama wadaagi kartid laakiin se when it comes to the stuff that you can share with people you can write stories out of it markii wixii xanuunka uu ku dhaafo oo wixii maaragtay aad ka soo kabatid you can write a book out of it hataa waxaana dhacay qasaaro noocaana waxyaabahan oo kale markay dhacaan sida looga soo kabsado you can make a fortune out of your losses to be honest marka ha u malaynin wax kasta oo kugu dhacayo oo qasaaraha nolosha ama aadan jeclaysan in ay in fact qasaarihiin marka qaar waxaa laga yaabaa casaa an tuxibbu shay'an عسى أن تحبوا شيئا هي هي عسى أن تحبوا شيئا وحلقة يا بينا واحد عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى لا عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم آية سيتوا so سبحان الله it's so powerful قفكي يعني قطع أوفيريا sabta waxyaabaha aan jecelnahay oo aan ka dab ordeyno ilaahay baa waxa laga yaabaa inuu naga hayo leeyahay kahar uu ilaahay ku leeyahay laakiin si adigu moog waxaad is leedahay why did this relationship and why businesskay horumar u gaari waaye why uu qof saas aan ii xumeeyay why me inta ku jirtid wallahi waqti badan ayaa kaaga dhumaya qasaarihi wuu ku soo gaari you can't do anything about it wax aad ka bedeli kartid malahan qasaarihi kugu dhacay okay wixii ku soo gaaray wax ay ka bedeli kartid ma lahan so waa inaad maaragtay you have to take it with grace waa inaad dhahdaa alxamdulillah ilaahayow sida khayrka aan markasta waxaan dhahaa wallahi that's the mindset I always move on and with waxaan is dhahaa ilaahayow waxaaneed hadday khayr yihiin adiga iga og ilaahayow waxaaneeto hadday khayr yihiin adiga iga og ilaahow qalbiga ii deji diino markii wax soo gaar maaragtay aan maaragtay aan la murugooda ama maaragtay sidii aan filay mahan si kale igu noqdo marka saas ayay noqonaysaa run ahaantii hadda meeqa daqiiqan hadlaya 12 daqiiqan hadlaya okay marka alxamdulillah sanadkii la soo dhaafay 2021 run ahaantii aniga I had so many wins waxyaabo badan oo ku guuleystay ayaa jiray dib aan u jilcsaday waxyaabihii aan qortay ayaan dib u fiirinayay maalmahan oo dhan marka waxyaabo badan oo aan ku guuleystay ayaa jira alxamdulillah in maaragtay not maaragtay YouTube channelkayga xitaa goals ayuu ii lahaa inaan meel sare gaaro in aan content maaragtay quality la aan duubo waxyaabahaas iima suurtagelin oo waxay ka mid noqotay waxyaabihii aanan ka dhabayn bay waxyaabihii maaragtay it's one of my lows ma garatay laakiin maaragtay highskii aan helay sanadkan 2021 run ahaantii aad ayay ii farxad geliyeen alxamdulillah waxaan dhihi karaa 70% waxyaabihii aan qorto dhan aniga waan ku guuleystay 70% and alxamdulillah so far so good markasta oo horta la dejinayo qorshe sanad dan sanadku dheeryahay waa 12 bilood marka qorshahaas ay to hadii intaad buuga isku xirtid ama meesha aad ku qoratay aad dib u fiirin wixii xitaa ka badbaynaysid waa inaad constantly waa inaad buuga fiirinaysaa waa inaad istiraada usbuucan maxaan qabtay bishan maxaan qabtay bil ayaa dhamaatay labada usbuuc oo la soo dhaafay maxaan qabtay maalmahan maxaan qabtay waxaas waa inaad wixii aad waa inaad wixii markastaba aad daba joogtaa oo aad maaragtay daba joog iyo raadacayn aad ku haysaa hadii kaleeto wixii maaragtay hal bacad lagu lisay ay noqonayaan waxyaabo badan adigu waxaad rabtid iska qori laho ma boqolaan waxa aad qoratid hadii wixii aadan daba joogin oo consistent aadan ahayn wixii aadan markastaba dib aad u jaleecin oo aad isdhayn usbuucan maxaan qabtay usbuucan waan ka gaabiyay usbuucan ay tahay inaan xoog is saara sababtoo ah let's be honest wax kastaba maaragtay usbuuc kastaba wixii si yihiin oo gama soo bixi kartid waxaan nusan kartaa madaxa ku xanuuni karaa
ان maaragtay ان waxyaabo kale taa kugu soo bixi kara ان qof maaragtay ayaad soo booqan ka maalintii aad isleeydba waxaas qabo qof xanuunsan ayaa laga yaabaa inaad soo booqatid ama qof ayaa laga yaabaa inaad meel wadid ama aroos ayaa laga yaabaa inaad aadid wax kugu soo bixi kara marka usbuucii aad ka gaabisid wixii aad sameynaysay en maaragtay ha is oranin en maaragtay hoos isku dhigin oo maaragtay niyada isku jabin waa ina istiraada okay isbuucan xoogaa waan ka gaabiyay isbuuca soo socda xoogaa waxa laga yaabaa wixii aan rabay inaan qabto sidii aan sameyn jiray si ka wanaagsan inaan u sii qabto en markasta oo horta alxamdulillahi rabbil caalamiin sanadii la soo dhaafo dhan aniga I started journaling inaan journaling sameeyo inaan waxyaabaha aan qorqorayo dhan aan sameynayo dhan aan qoro I was a teenager in fact markii aan bilaabay inaan wax qorqoro oo aan ahdaaf aan dejisto I think 8 meelahaas jiray waqtigaasayto alxamdulillah so far so good hadartan dhowr sano sameynaya wallahi waana wax wanaagsan ayaan dhihi karaa sababtoo markaan dib u jallaaco bug waxa had yaala 20 miya bug xitaa bug hadartan bug buugta waan tuur jiray inta badan xitaa wax ku qorqoro laakiin se bug waxa yaala hadda in 2018 xitaa ahdaaftii aan qortay waxyaabihii aan rabay inaan sameeyo kulli aan ku qortay ayaa yaala buugaasna subxaanallah waxa ku qoran waa 4 sano ka hor in aan barto luqadda maaragtay luqada inaan barto iima cadeyn luqadan barnay luqada ay tahay luqada aan barnay luqada ay tahay laakiin markaas waxaan ku hadlayay Soomaali Swahili Ingiriis baan ku hadlayay laakiin waxaan rabay ayaga baan rabay inaan si qoto dheer u sii barto marka alxamdulillah hadda buuga markaan dib u fiiriyo 4 sano ka hor aan rabay miyaa inaan luqad barto oo hadeertan dhow baan u maleynay inuu fikirka ay ku dhashay marka meel wax ku qoratid waxaad ogaanaysaa waxyaabaha qaarkood hadda aad sameynaysid sanado ka hor xitaa inay niyadaada ku jireen marka qaar waan yaabaa markaan buuga dib u milicsado waxyaabii 4 sano ka hor buugaas igu qornaa waa waxyaabo aan rabo hadda waqtigan la joogo xitaa inaan sameeyo wali aan sameyn markaas waxaan dhahaa waxyaabaha hadda aan rabo inaan sameeyo 4 sano ka hor waan rabay waxaan inaan sameeyo in la wax badan bay niyadeyda ku jireen marka it is maaragtay waxaan dhihi karaa waa safar yar oo noloshaada ku saabsan oo aad u qurux badan marka dib u milicsatid waxaad isleedahay subxaanallah war waxaaneeto intaas sano ka hor xitaa niyadeyda may ku jireen masaan baan u fakariyay 5 sano ka hor masaan baan how was I mentally xitaa maaragtay sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo document gareeyay oo xitaa mar aan aad u murugeysnaa 2019 bay ahayd waqti aan aad u murugeysnaa oo I was so down sanadkaas I was so down hadii aysan ahaan lahayn familkayga oo ay uplift gareynayay oo garbahayga taagnaa markasta oo ay dhahay hey you can do this iska daha ka walwalin anaga garabkaaga wixii dhacay way dhaceen wax kastaba maaragtay anaga maaragtay ku provide gareyna nolosha u baahan tahay wax kastaba caawimaad nooga baahan tahay anaga garabkaaga move on naga daa waxaan ha ooyin mar dambe just move on familkayga wallahi saasi dhahay ma ahane I had the biggest breakdown 2019 waxaasoo dhan waan document gareey oo hadda marka dib u milicsado buugaagta aan ku qoray waxaan dhahaa oh my god war waxaan xitaa ma soo maray xanuunkan miyaan soo maray sababta wixii dhan iska hilmaaba aniga laakiin markaan buug dib u milicsado waxaan ogaanayaa in aan soo maray waqti aad u xanuun badnaa wallahi waqti aad u xanuun badnaa waqtiyo aan islahaa hadii maaragtay waqtiyo aan islahaade it was not a matter of life or maaragtay or death waxaas mees ahayn maaragtay life and death mees ahayn matter laakiin se waxay ahaayeen waxyaabo aan islahaa subhanallah it was one of my maaragtay the lowest point of my life waqti aan aad u walwalsanaa laakiin se intaas ba maaragtay aan adkaar akhrisanayay aan quraan akhrisanayay mentally xitaa maaragtay it was a big roller coaster waqtiga aan ku sugnaa waqtigaas marka dib markaan u milicsado run ahaantii buugaagtii aan qoray waqtigaas journaling aan sameynayay waxyaabihii aan sameynayay oo aan lahaa dina waxaaneeto maalinta noqotaba waxaan ka soo kabsan doonaa maalinta ay noqotaba waxaan way isbedeli doontaa marxaladayda way isbedeli doontaa maalinta ay noqotaba dina waxaan kaleeto xasuustaa quote aan meel ku qoray 2018 oo ahaa ayadana I think I was going through a rough time waqtigaas qofka markuu uu yar yahay oo maaragtay uu teenage-nimada ka soo baxaayo oo 2019 meelahaas aad jirtid it's an roller coaster of emotion wallahi waa waqti aad u xanuun badan run ahaantii so please ha loo naxariisto dadka markay yar yihiin garab ha la siiyo waxa laga yaabaa go'aamo aan wanaagsaneyn inuu qofki qaato waxa laga yaabaa maaragtay qasharo badan oo nolosha ka baranaya wuu ku fayaa wuu ka caliyaa hadee wax ku dhacaan xitaa adkeysanki uu u adkeysan lahaa xitaa waxaas ma lahan
marka ilaahay waxaa ugu shukriyaa markasta inuu isiiyey dad ijecel dad igarab taagnaa dad i aaminsanaa oo ilaaha markasta raxmo waxaan yarkaaba hadda ka calaacalaysa laakiinse waxaan ognahay inaad meel sar ka gaari doonto nolosha in aad ka tagi doontid magac iyo maamuus inaad nolosha uga tagi doontid ayaan aaminsanahay marka waxaan yarka oo kugu dhaca dadka dhan way ku dhacaan waa iska normal waxaa laga yaabaa xitaa wixii waqtigaas ugu dhacay oo aan la oynayay oo hadda sanadkoo dhanba xitaa aan la murugaysanaa haddii hadda idin sheeg inaad qosashaan laakiinse idinma sheegayo waa waxyaabo maaragtay noloshayda ku saabsan waa waxyaabo qalbigayga u dhow waxyaabo personal ah balse qofka markuu yar yahay adkaysin ma lahan ma adkaysan karo especially generation ka hadda joogto qofka markuu yar yahay ma adkaysin ma lahan markii xoogaa aad ka soo baxday teenage-nimadoo madaxa ay soo qaadido markaa madaxa kor u qaadido wax samee aysan ahdidba madaxa inta lagu dhufto aad dhulka fariisatid maaragtay waxaad is oranaysaa this is the end of life wallahi marka alxamdulilah rabbilcaalamiin journalinka iyo qofka inuu wax qoro qofka inuu ahdaaf samaysto qofka inuu marxaladaha uu ku sugan yahay markaas uu qoro sanado badan kadib dib markuu wixii u milicsado wuxuu ogaanayaa xaaladihii uu ku sugnaa waxaad la noolaanaysaa mararka qaar waxyaabihii 10 sano koor kugu dhacay waxaad is leedahay oh my god ma waxaan baa igu dhacay ma waxaan baan maalintaas qoray ma saan baan dareemay maalintaas oo ma waxa yarkaa basiidkaaban maalintaas ka ooy oo ma waxaan yaroo saan noqdaan maalintaas taas la noqday oo ma xiriirkii yaraayo saas noqday baa maalintaas saan ahaa wallahi bilaa waan ku farxsanahay inay maalintaas waxaas ugu dhacon sababtoo ah ma aragtay meeshan ma soo gaareen adaa laga yaabaa ina mararka qaar isku qosashid xitaa marka aad muhiim tahay in wax la qorto in dib loo milicsado sanadihii na soo dhaafay in aan ogaano constantly sida fikradaha ay isku bedelayaan inkastoo aan hadeertaan noqdayba qof mar kastaba isbedela because overthinker ayaan ahay qofka marka overthinker yahayna I'm not indecisive sababtoo ah go'aan marka aan qaato waan ku dhagaa dhab baan ku dhahaa go'aanka aan qaato marka qaar lagama fujin karo waxyaabaha aan go'aansado balse overthinker qofka markuu yahay wuxuu ogaanayaa wuxuu isleeyahay markuu xitaa go'aan qaato waxaan science kugu noqdaan ama science ka imaada ama caqabado noocaas ka dhashaan maxaa ka soo gaari kara maxaa faa'iido ku ah it is worth your time waxaan inaa samaysid waxyaabahaas dhan isweydiinaysaa marka meeqa daqiiqan hadlaya hadda how many minutes 22 minutes okay run ahaantii codkayga waan u xiisay inaan hadda saan u hadlo awal baan waxaan lahaa xabeeb baan lahaa dadka waxaan ahay codkooda xoogaa yar oo deep waaye somehow it's deep marka hadeertaan microphone haddii aan ku hadlayo waa dareemi lahaydin inuu deep codkayga yahay balse xoogaa marka saan kale u hadlaysid oo maaragtay shucaac yar uu ku jiro codka clear uu sahin ma dareemi karin but I have a deep voice markii xoogaa yar uu hargab igu dhaco ama wuxuu igu dhacana codka dhan uu iga xirmaan dub uu codka dhahaya marka waxa laga yaabaa xitaa inay xam dhahday marka hadlaysid dadkina ma maqlayaan okay marka alhamdulillah we are blessed qof kasto cod maaragtay dib ale and in fact it's a beautiful voice uu qurux badan yahay isdhigi karaa codka dibka ah maaragtay in many levels maaragtay yeah even when you're talking people will take you seriously marka codka uu dib yahay alhamdulillah so we are blessed in that regard and khayr ayaa idinku dhaafay I can't wait inaan kamerada soo hor fariisto I can't wait inaan wax ka bedelo maaragtay sanad cusub waaye how I present my content I can't wait inaan maaragtay waxyaabo badan dib ah ka wada hadalno I can't wait waxyaabo badan oo noloshayda iyo noloshiinaba horumar gaarsiinaya inaan isla wadaagno inaan wada sheekaysano inaan isbarano sababtoo ah saaxiibadayda tihiin run ahaantii dadka markay meesha qeyrta oo qadka ay ka wada xiriirayaan oo aysan xitaa aqoon isku lahayn balse ay isdhageysanayaan oo waxa laga yaabaa afkaartaadii afkaartooda ee marka qaar isku mid tahay oo waxyaabo adiga kugu dhacay inta ka hadishid waxyaa ayagana similar situation ay ku dhacday maaragtay oo isku si ay u fikiraysaan isku wax aad jeceshiin dadkii marka qaar oo maaragtay barta laga wada socdo aqoon saas aan la isku lahayn laakiin se barta laga wada xiriiriyo la isku xiran yahay waxaan dhihi karaa waa wax aad u qurux badan waa wax lagu doorsada aan lahayn marka saaxiibayaalow khayr badan ayaa idin rajaynayaa maalinta idin wacnaato si fiican u seexda sanadkan maskaxdana laga shaqaysiiyo oo wax yar oo faa'iido noole oo tayo leh oo wanaagsan oo labada daarood badeena anfacaya aan xooga saarno marka khayr badan ayaa idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh